dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta oo maanta mar kale ka bilowday galbeedka gobolka City. Wararka ka imaanaya dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City ayaa sheegaya in maanta mar kale uu dagaal ka bilowday deegaano ka tirsan galbeedka gobolka City, dagaalkaas oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfar. Inkastoo aan la xaqiijin karin cidda dagaalka maanta soo qaaday, haddana dadka deegaanka ayaa warbaahinta la wadaagay in Canfartu ay saaka weerar ku soo qaadeen deegaano ka tirsan galbeedka gobolka City ee dawlad deegaanka Soomaalida. Khasaaraha ka dhashay dagaalkan ayaan weli la sheegin, welina waxaa adag sida xog faahfaahsan looga heli karo dagaalkan maanta ka bilowday galbeedka gobolka City gaar ahaan goobta lagu magacaabo Dabamara oo dhacda galbeedka City. Dhinaca Soomaalida guulo ayay ka sheeganayaan dagaalkan maanta sida ay ku soo warramayaan dadka ka ag dhow goobaha uu dagaalku ka socdo, balse wararkaas ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara. Xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida weli kama hadlin dagaalkan maanta, sidoo kale ma jiraan warar faahfaahsan oo ka soo baxay dhinaca dawlad deegaanka Canfarta. Isku soo wada duub oo dagaaladan u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ka soconayeen deegaano ka tirsan galbeedka gobolka City ee dawlad deegaanka Soomaalida, iyadoo horeyna waan la isku dayay in xal laga gaaro colaadda Soomaalida iyo Canfarta aan wax natiijo ah laga gaarin. Wixii warar ah ee ka soo kordha halkan kala soco. Mahadsanid.